فرحية مهدي عبد الله هي ولالكed ka yar oo 5 cisho ka hor ka soo baxay salaada taraawiixda ayaa iyagoo ka gudbi raba halkan ku gooriyootay farxiye walaalkeed ka yar oo xilligaas kala soo baxay salaada taraawiixda ayaa waxa uu noo sheegay inay walaalkeed ku tiri farxiye halkan istaag si ay ugu tijaabiso roobabkii biyaha halkaas xilligaas marayay inay biyahaas yihiin biyo xoog leeyihiin biyo yar isla markaasina farxiye markay halkan soo istaagtay isku dadanay biyaha tijaabiso biyaha ayaa qaaday sidaas ayayna ku geeriyootay budaya samatora marxumed farxiye ayadeedo la hadashay warbaahinta deegaanka ayaa nooga warbixisay xaaladda qoysku haatan ku sugan yahay inantaydu maqrib baa galay salaadkii baa gaaray waxay qaadatay labada haleeb halkii ahsaan buusihii ah waan u soo noqon bay tiri cashada waan u soo noqon way tagtay ilaa taraawiixdii dambana way tukatay joog baa la yidhi cirbaada'ay waxay tii walaalkay baa iga hor imanaya mahad baa u tegay way isa soo raaceen sidaa kolkii raadka loo soo saaray biyihiina waa lagu dhacay dee meel fudud baa ilaahay isaga ku joojiyay iyadana mawjadii unbaa alla mariyey inankiioo dee sidaa leh ayaa yimid warkeedaba inankii yaa yidhi farxiyaan waayey isagii waxaa lagu duubay bustayaal warkaa kolkii laga helay dee magaaladun baa saa u dhaqaaqday waxaa laga soo helay toga hoose daymacad sheekh cali guure uxiita daymacad meesha la yidhaah yaa laga soo helay wiilashiina waa joogaan anigii waa ikan iyadaa iyo ilaahay mooyee niman eeganaynay kooy saaka dawladan askarahan yare qabalaha ii gasho iyo kolay meel kale ii gashaba iyada uun baa wax ka sugaynay saaka haddii alla ku day saakana cidladaasay walaac nagu tirid cidladaasay wax nagu siisay hadday telefoon loo iibiyahay hadday saaka jamaacada ay gala ahayd hadday soo dhiganayeen habeen qoy hooyadii aabahood goda dhimatay habeen keliya marka maxaad ka codsanay dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ka codsan lahaa wixii kashkiisu karaamado ee ilaahay iigu soo rogo oo iiga naxiyo inayna gacan qabtaan inay inama yar way iga kala yaacayaan ee gacan qabtaan iyaga oo wixii ay soo dhigatay ay u soo dhigtay ay ku rabaadayna gacanta ku haya iyaga oo bartanka iga kala yaacin ayaan ka codsaday waxay ii heli karayaan الله naxariistay farxiye mahdi cabdullaah ayaa ahayd gabadhan yar oo korisa 5 caruur agoon iyo rajooyin ka dhinteen aabaheed iyo hooyadeed kal hore ayuuna farxiye walaalkeed ku geeriyooday tahriibta Liibiya haatan waxa xaafada ku soo haray farxiye ayadoo waayeela Sahra Siman SRTV Jigjiga.